garoonka diyaaradaha ee Moi ee magaalada Mombasa ayaa si weyn waxaa loogu soo dhaweeyay laba wiil oo matalaysa Kenya isla markaana ka soo wada jeeda magaalada Mombasa oo kaalinta koowaad iyo kaalinta saddexaad ka soo galay tartankii 11aad ee xifdinta Qur'aanka Kariimka ee loo qabtay magaalada caasimadda waa dalkaasi Kuwait ee Kuwait. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. محمد أحمد محيدين oo 23 sano jira isla markaana kaalin saddexaad galay tartankaasi Qur'aanka Kariimka. Dadka waaweyn ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay oo farxad ay ka muuqato qaar ka mid ah asxaabtiisa iyo weliba sidoo kale macallimiinta madaarista Qur'aanka Kariimka ee magaalada Mombasa ku yaala. وهاجاج آدي آدي فرحد إنه طهي إن ويلكو سجنها أيربور كم مجالة مومباسا وأن كسر وين إنه محمد محي الدين وكارين وين كسر قلي ترتني قرآن كريم كالجوسة جبي مجالة الكويت دل كاس الكويت محمد إن آدي ألف مبروك. الله يبارك شكرا. إن بل إنه قبل ترتني كسر قبل شيء كارين تسوق شيء يو واحد كنت تمسي. إنه وعقالي ترتني ككويت أو إنترناشنال تضوات ودن سوخاب قال الحمد لله. هي. كانت استحادة قاله. هي. كانت كوات أمريكا قال لواد ليبيا استحاد أنا كينيا سوخاب. ما شاء الحمد الله. لله. محدد مسافر حدا محدد مس أنت أنا وقف ما تقصد ويسي. هذا فرح سنة هذا سامو فيلنين هي. حالكو خف لو خف على فيلا كين. هي. لواتنا خف صدق خف هالمرة ما أنا مفيلنين ده. مقالدنا إن ما أنت ما مسنت هي حتى سوي سان كدر لا قصد وين دون الله. ما ويل ما مسني بيني. مركا كوسو بقى البارك سام كاسوفيري نانا خلا ريبي هذا نظام نانا خلا ريبي انت قبلها اصحابنا ما ماتي اصحابنا ما الحمد لله ان ما هن markii aad ugu horeysay tartan aad ku guuleysay aad saano kala bal dadka adiga oo kala dhalinyarada maxaad ugu baaqi lahayd Qur'aanka Kariimka maadaama rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay Qur'aankan dad wiilaha kor ku yaala dadna hoos buu ku dhigaa adiga ma sha Allah waxaan ku rajeynaa Ilaahna kaaga barayno ka dhigo dadka Ilaahay kor Qur'aanka u qaaday maxaad waalidiinta dadka ugu baaqaysaa waalidiinta alxamdulillah dadku ani waalidkeerku maalin walba Qur'aanka akhru daa maalin walba bacda al-maghrib ila 10 wasla fadhina masaajidka mooga baxay Qur'aanka qofka markii xifdiyo isku dadaala fiican dad badan way xifdinaan bas iska dhaafayaan waxaan bas Qur'aanka akhriyo jirnaana saas ma laakiin maalin walba muraajac اللي سماوه هذه كان هذا مراجع سمان صلاة مدوجي كرتد حفظها وقعدوا ما ترتن بدأش قول مهل كرتد ما لول بنا إن آخر ست الاستغناء dadkii soo dhaweyntan ka qayb galay oo kamid yahay Maxamed Axmed Muxiidiin aabihiis ayaa isaguna halkan inagula hadlay tareenkiisuna noo muujiyay maanta halkan dad aad iyo aad u fara badan oo sidii madaxda la mid ah ama ka daranba ayaa wiilkaada soo dhaweynaysay bal dareenkaada aaba ahaan waalid ahaan quraanka soo bar maxaa dareemaysaa bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wallahi alxamdulillaah horta ilaaha mahadle oo maanta oo noo kasay inuu wiilkayga macnaa heerkan oo gaaro waxa anaga aan dadaalnay ma ilaaha macnaa ana gaarsiiyay heerkan aad iyo aad ayaan u faraxsanahay inta aan dadkaan meesha isku imaadeen dhanna waxay soo imaadeen munaasabadan in macnaa aan ku soo dhaweeyno wiilkeena arboorkan joogna Mombasa Moi International Airport magacayga waa Muumin Maxamed Cali xaqiiqatan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan soo dhaweeyno walaalkeena Maxamed Axmed Muxiidiin oo nooga qayb galay matalay Kenya ka qayb galay tartankani musaabaqada ka dhaceysay wadankani Kuwait alxamdulillah wuxuu ku soo guuleystay raqamka saddexaad dan inta waxa isku keentay wax kale ma ahan inaan dareensiinayno inaan jecelnahay qof walbona uu istaago kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala koryeelkiisa xifdiyana inaan sidaan si ka weyn loo maamuso waana mudan yahay saas darteed awgeed ayaana keentay magacayga waxaa la yiraahdaa Usmaan Maxamed Shaafi alxamdulillah maanta waxaan ku faraxsanahay inaan walaalkeena Maxamed soo dhaweeyno oo aan maamusno sida madaxdii oo kale waliba ka sii daran ana aad aan maaragtay faraxsanahay inuu soo guuleystay Ilaahay subhanahu wa ta'ala mid adduunka aakhira ku anfaco Ilaahay ka dhigo Quraankaas waa xambaarsan yahay waan aad aan mar u faraxsanahay anaga sida maaragtay khaasan walaalkii iyo saaxiibkiina waay
cabdiraxmaan muuse oo 12 sano jira ayaa isaguna waxa uu galay kaalinta koowaad ee tartanka xifdinta quraanka kariimka ee daayarta isaguna isna ka soo jeeda magaalada Mombasa waxaana isna si weyn loogu soo dhaweeyay isla garoonka diyaaradaha ee Moi International. tartankan oo ay ka soo qayb galeen 70 wadan ayaa si weyn waxa uga soo dhex muuqday tartamayaal ka soo kala jeeday Kenya iyo Soomaaliya. hooyo Hindiye Fiqi Cali oo dhashay Maxamed Axmed Muxiidiin ayaa iyadana waxa ay sheegtay in wiilkeedu halkaasi ku gaaray dadaal iyo duco waalid iyadana ugu baaqday waalidiinta inay caruurtooda ay la dadaalaan. السلام عليكم magacayga Hindiye Fiqi Cali waaye maxamada waxaan ahay Maxamed Axmed ما شاء الله شروط هذه وكعسنتها وفرحسنا زائد مهم هرت الدعاء واي ودعينا مر والبا إنه يجينا فرحة هلان مركا يجي فرحة هلان أنا جاني هلينا مركا ودعينا مر والبا إنه يجوش عمله هلان kolaya gaadiid oo ka soo galbisay geeyada diyaaradaha ee Moi magaalada Mombasa ayaa waxa loogu soo gudbiyay bartamaha magaalada Mombasa. maal walba in akhir sid lisnaqnaa adaa guul rabtid horumar da gaartid quraanka ta akhir sirtko horumar leh aad iyo aad ayuu maasan yahay maxamed muxiidiin ayuu ahaa oo runtii sida arkaysaanba tartanka quraanka kariimka ee dalkaasi Kuwait lagu qabtay ku soo guuleystay isla markaana dad aad iyo aad u fara badan ay halkani ay ku soo dhaweeyeen. maxamed cabdi bootaan warbaahinta Star airportka magaalada Mombasa.